السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحابتك وحنا عاب التكنولوجي أدبنا دي سلامية مرحلة waxaan isla balansanay ama aynu bilowna course-keena Linux 1 waxaan soo sameynay installation-kii VMware Workstation-kii waxaan sameynaynaa aysadii baan ku duubaynaa VMware-keena laba hab waad ugu duubi kartaa halkan create new virtual machine baad ka wada karaysaa halkaana waad ka wada karaysaa labada taa raacdaaba waa okay halkan laba option ku koreysiiyay typically baad u miyaad raacaysaa habka mise custom baan oranayna inaga haganayna waxina maamulayna halka waxaad ka dooranaysaa 15 Workstation 15.x version-ka ugu dambeeya next baad leedahay ay sida hadhoona ku soo dilacay weeyaan halkaas aad point-ka soo dooranaysaa waayahay halka waxaad ka dooranaysaa Linux halkan waxaad ka dooranaysaa version-ka ugu dambeeya next baad tiri halka magac baad ula baxaysaa waxaad oranaysaa wada doonto togler server-keena togler baad ula baxaysaa number of processor-ka inta saad u dhaafaysaa number of RAM kaas iyada waxaan sameynaynaa hadhow swap-ka ka badanaynaa halka GB baa u dhaaf next baad leedahay NAT si internet-ka u gaadho haye halkaana saasaad u dhaafaysaa taa uu kugula taliyay baad raacaysaa iskaasinka waayo waa server waxaan ku duubaynaa create virtual machine new virtual machine folder cusub u sameysanayo hadhow waxa ku fududaanaya delete-kiisa next baad leedahay halka tirada inta siinayso inuu laabtamaan siinaya store baan doonaya virtual disk in single file next baan leeyahay waa magacu bixiyay server-keena ama Linux-keena finish baan oranaya halka markuu yimaado wali shaqay harsan kuma soo dalcin maxay aysadii edit baan tagayaa edit markaan tago waxaan oranayaa CD and DVD use ISO image file baan leeyahay halka aysadu ku taalo ayaa tagaysaa waxaan tagayaa marka aysadu ii taalo ayaan tagayaa aniga halkaas ii taalaa wata uu soo detach gareeyay okay baan leeyahay imika shiday hadaba toos markaan imika u shido labadan okay baan iska siinayaa installation-ka marba waan gaagaabinaya waayo uu dheer yahay halkaa ma ku marayo inter baan oranaya inter markaan dhaho uu isku duubaya cabaar uu soo cabaar isku duubo marba waan hakinaya videoga halku marayo waan idila socodsiinaya insha Allah tiro maraya imika ISO file-ka isku duubaya tirada yar markuu dhameeyo insha Allah ayaynu isku soo noqonaynaa si aan video ugu dheeraan insha Allah way page-kan uu ina keenay luqadda aynu dooranayna continue baan leenahay isaga inoo dooray continue markaynu niraano waynu sugaynaa cabaar installation-ka ugu badan halkan oo ka dhacaya marka waxaan soo buuxinay luqadda iyo keyboard-ka dheedkii time-kiinu buuxinaynaa inagu muqdisho ku ajiif gareysanahay dhan baan oranayaa halkan waxaan ka soo dooranayaa workstation dhan baan oranayaa halkan partition-kan ka qaybinaya custom baan oranayaa waxaan leeyahay budka waxaan siinayaa 10 GB waana standard partition waayahay qaybtii sida RAM-ka u shaqeynaysay swap-ka loo yaqaan iyadana waxaan siinayaa maxay 3 GB waan siinayaa inta soo hadhana waxaan ka dhigayaa home directory waxaan ka dhigayaa home markaan ka dhigo waxaan odhanayaa sidaasaan ku aqbalay dhan baan odhanayaa accept changes baan leeyahay waayo root-kan u sameynaya password-kiisa hadaba root-ka password-kiisa markaan geliyo labaad baan ku celinayaa hadaba marka root-ka password-kiisa geliso root-ka marka waa user ugu awood badan sida aynu soo sheegnay insha Allah halkan user baad ka create gareynaysaa waxaad leedahay marmar ha u shaqeeyo sida administrator-ka password baad isagana u sameynaysaa password ayaa isagana u sameynaysaa
inta markaan sameeyo dhan baan odhanayaa waxba igama hadhin markaa. halkan waxaan doonayaa firmware stationku inuu siiyo DHCP ku bixiyo IP-yada. waxaan odhanayaa begin installation. markaan installation-ka markuu dhameeyo insha Allah ayaynu tagaynaa dashboard-kii ma user-kii baynu gelaynaa. installation-ka intaas inoogu dhan yahay ma in yar baa ka horeysa, in yaroo muhiim ah baa ka horeysa. intaan waan isleegaynaa insha Allah. marka fiidiyowga si aan u dheeraa marba waan yaraa hakinayaa. salaam ya asxaabta insha Allah. waay طبعا installation كما كنا مايستو halka inoo marayo waxaan odhanaynaa reboot system. reboot system marka tiraado waa yar sugaysaa cabaar baa yar sugaysaa insha Allah. dib u soo daaraya cabaar baan sugaynaa. dib u soo daaraya baan sugaynaa. marka casharadan waxaan kasoo dhigaynaa insha Allah haddii Ilaahay ka dhigo casharo tutorial oo taxana ah. waxaan soo gelinayaa channelka insha Allah. waan sugaynaa. wata halkan idin sheegayay this information ka markuu ku yimaado waad ku dhufanaysaa click baad leedahay. halka yar baad tigta saaraysaa insha Allah. dhan baad odhanaysaa installation-ka wuu inoo dhamaaday. finish configuration baynu odhanaynaa. finish configuration markaynu niraahno toos buu soo daaraya. username-kii buu geenayaa. username-kii markaynu ku gudubno dashboard-kii buu geenayaa. cashirka xiga intaasaynu ku gabagabeynaa insha Allah. cashirkaasina wuxuu ahaanaya installation-kii. user-kaagii markuu geeyo halkaa marka tagto waxaad odhanaysaa password-kii baad gelinaysaa user-kaaga. enter baad odhanaysaa. dashboard-kii buu toos inoo geenayaa CentOS-ka insha Allah. cabaar baad yar sugaysaa kolley wuu diyaarinayaa. waa yar sugaynaa insha Allah. markaan installation-ka habkaas u baad maraysaa aan soo raacay habka aan sameeyey aan baad maraysaa insha Allah. aysadina waan ku siiyey laabka xiga isla caawa ayaan channelka soo gelinayaa insha Allah. playlist gaarana waan ka dhigay. waxa ku qoran new chorus Linux 1 baa ku qoran insha Allah. waan sugaynaa insha Allah. san video ugu dheeraan ayaan ka taxadarayaa. waan sugaynaa insha Allah. marka inoo galay dashboard-kii baan geenayaa. optional yar bina yaradooda la siinayo kaan waa escape baynu odhanaynaa. yar sugaynaa insha Allah. waa yar sugaynaa. halka markuu ku keeno insha Allah luqaddu way ku doorantahay wata tagta ku saaran negastii baad odhanaysaa. timing-kana way noo dooran tahay. oo inaga English ka soo dhiganay negastii baynu leenahay. negastii baad odhanaysaa. escape baad leedahay. start CentOS Linux. si aad ula soo baxda haddaba terminalkii ama daaqadii terminalka waxaad tegaysaa activity markaad tagtana terminal baad tegaysaa. si aad haddaba usoo weynaysato waxaad odhanaysaa control shift iyo plus. markaad intaad tirado si aad iskaga bedesho kalarka farta iyo waxyaalaha waxaad tegaysaa edit. privacy-gaad tegaysaa. coloriskaad tegaysaa. markaad tigta ka qaad halkaasaad ka dooranaysaa. markaa markaad doorto kasi noocaa kuu noqday insha Allah. noocaasuu kuu noqonayaa. nooca markuu ku noqdo wakaa cashirka xiga insha Allah. basic codeskiisii baan gelayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baan idiin salaamayaa. asalaamu calaykum.